بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو ونكسن إذا لحانتين بأخيارتا نقول حلان هالكاني نقلا سعودو كسولو هذا بقى أوركا حوتين تقرن مدى الصومالي لان حدي أن نقول عصوب تهاي فضلا سبسكرايب صار وفرقا مبالالكا سياد مركاسي ولا سعوتو دعدو إنكا يور بحنا عصوبين سوق قليلو وحصوص عود ورشدي بارلمانكا يتي دولة أخوص horta haddaynu isla fahmna kelmadda doorasho ereyga af soomaaliga ah oonu ereygaa siduu yahay ugu dhaqanno waxbay naga xumaan maaya waxaanu nidhi waa doorasho dee haddii la dooranayo waxaa iska rabi alla ka u wanaagsan baad qaadanaysa ilan doorashaa la yidhi balda kelmadda eeg kelmadda qura ku filan magacaasaa noogu filan inaynu ku dhaqanno waa doorasho war halkaa shantaa sheegaya alla ka u wanaagsan baad la boodsaada doorasho dee ila ka xunina qaadan maaye marka haddii lagu yidhi xafiiska cidda ugu wanaagsan ayaa la dooranaya oo shacabkii loo dhiibay oo dadkii laga qaraya dastuurku wuxuu yidhi dadka codkooda ayaa dalka xukuma iyagaana awoodda markaa shacabku yaa la yidhi dooro xafiiskaa kugu wanaagsan dee laba isqaban maayaan in doorashadii awooddaad gacanta ka soo lagu yidhaha dooro inaad laba bilood ka bacdi kutaa shalay dhaantay dee labadaas isma qabtaan markaa qof wal oo muwaadina waxaan leeyahay waar waxa wanaagsan dooro kow halkay ka soo bilaabaysa waxa la xisbiyadu ha soo saaray dadka wanaagsan xisbiyadu waxa shacabka xukuma codad bay ku joogaan waxaana way raaca dadku halku u bato markaa gudoomiyaha xisbigu ma marorsan kara talada ee wuxuu u dhiibayaa hadba deegaanka wax laga soo dooranayo marka afka doonta caalamka u bixi ama deegaano kororsi dheh ama reer dheh ama koox dheh bal magaca doonta bixi waxa weeye inta meeshan wada deganay qofkii dowladda hoose idin maamuli lahaa iyo kii dowladda dhexe idin matali lahaa idinku iska dhex doorta te markaa maanta waxa weeye qofkii wax dooro oo lagaama isku birtaa ala casho oo taa ku yaraa dhaamay kuwii hore waxay qabteenna way qabteen qof waloo xafiis qabtaana dhaliil waa leeyahay na walabana wuu dadaalay inagu xagga dhalish inta badan salaada way wada shaqeeyeen meel kasta joogaan nin kastoo xil loo saaray meel loo doortay wuu dadaalay taagiisa ninkii dhaliirayo maantay joogtaa ku wanaagsan soo dooro laakiin birtaa ala gudoomiyaha xisbiga calaanan dowladda goolaha calaanan adaaba lagu dhiibay shayga u wanaagsan qofka u wanaagsan xafiis ku qabanaya keen doorashadu hawl weynaada waxtar weynaada hawl weynaada hawo inagu ma fahamsanine waynu isku haaraanaa waynu ku kala fogaanaa colaad baynu qaadanaa tartanka iyo colaaduna waa kala jaad bal amuurta ilaahay berigii hore aynaan tacaynta badan inaan ilbixin dadku way kaftami jireen oo way doodi jireen oo way isu gabi jireen oo baanisaha iyo dooda geedka way isku gubi jireen haddana iyagoo saaxiibo ma soo raaci jireen doorashada waa la doodi kana fiican xisbi qof waa lagu doodi marka dambe waxa soo bixi lagu batumbayno wadana inaga daayeen wax soo raacay inaga saaxiibuna ka wada duulana waadsa tu kale leedahay mujtamaceenu waa qaybisay waxay u qaybisay si qaldan doorashada ilaahay dadkan wuxuu ku abuuray laba iyo dhidig rag iyo dumar bayna hablu dhammaan markaynu hadda waxa ilaahay naga waxtar badan dhammaanna waxaynu qarraa hawsha qaban karaa inaan qaban karin dhammaanteen waxaynu bogadanaa heestii hasraawey hooyee la-aanta haddana marka la yidhahdo hawshaa la qabto dalka inay ka shaqeeyaan oo shaqo loo dhiibo waynu diidanahay murankama joogo maaha doorashada uun wax kasta oo shaqo oo dadka dhexaysa haddii gabadha la geeyo waa la garbinaya waa maskax qaldan maaha in diintu si qalada loo tarjumo wixii ay diintu ka reebtay iyana waa ogol yihiin inoo ogola muran kala joogo shareecada labadaa la isku qalde dadka marka xaqooda la dafiraayo ayaan meel micno qalada la geynin habluhu guryaha joogaan diintu waxa ay ka reebtay ka reebanaad laakiin wixii kale diintu ogolaatay xaqa inaga u baahan hawshan la galaa marka haddii doorashooyinkii imika ay socdaan oo meel qura gabadh laga soo sharix kari waayey oo aan suurtagal ahayn waayo marka hore saakootii waan shicibku ogoleen dee haddii halkii laga talinayey masalan golahan oo kale oo baarlamaankii ama dowladdii hoose ah oo laga talinayo horta dadka bulshada
yaa u xoog gaalsan maragga mise dumarka markama joogo waan wada haddana halkii tale lagu goynayey haddana yaana imanin dee inaga xaal ogaal moodanihin markaas sidaynu talada inoogu baxaysaaba ayayna isweydiin leh haddii la yidhaha golayaasheena aanu ka safayno dumarka dee aniga waxay la tahay taladeena wax wada bakri baa iyaga wadan maaha wadanaynaba laakiin dee waxayna wax badan bayna xoog bayna ugu hayn haddaynu raggana nolosha boqolka konton war ma hayno iyagaa nooga arfaran dhuwan bal arrintaana shacbiga guud ahaan aad dib looga fikro iminka doorashada socota xisbiyadii baarlamaankii way ka niyad jabeen waayo ma soo geli karaan waayo waxay hubaan aan cod cidi toos siinayn dhaqaalaha lagu yaryahay cidi ma ogolaanayso cid kastoo deegaan kastoo shiraya wuxuu leeyahay gabar inaga daayo horta ragga qodobka saddexaad ee doorashada ku saabsan waxaweye doorashada way hawl badan yihin waktina way naga lumiyaan dhaqaalaheena aad iyo aad iyo aad bay iyaga waxu yeelaan inagoon tabar hayn oo dhaqaalo badan haysan dhaqaalaha publiga naga dhexeeya ee qaranku leeyahayna way ku hawlbadeen way ku culays badan yihin dhaqaalaha gaar loo leeyahayna sida loo isticmaalo iyo khasaaraha ka dhaca ma malays waxaan u maleynayaa xildhibaanka dowladdu Soomaaliya hoose laga dooranaya inuu 9 goor ka qaarisay ka New York laga dooranayo ka Japan laga dooranayo waxayna sameeyeen evaluation lacagta ku baxda doorashaduna waxay ku baxdaa 9% waxaan Soomaaliya toos u dhaafa waa qaad lacagta 50% kamid ku baxdaa waa qaad talabaadna waa shidaal socod aan loo miyaandayn oo kaambeyn baa la eriyaa waa laba ta saddexaad waa iidhe oon afka ahayne doolar la soo daabaco iyo material dhammaan dibadda ka yimaada marka waxaad sooraysaa kaambeynka inta ay naga macaashaan qolooyinka naga soo iibsana qalabka daabacaadda iyo shidaalka iyo qaadku warshada noo dhisi lahayd ee baraafiska bixiyaan de markaa dhibta kasta ay nagu ahaatee hadhowta kuwa dambe aanu kharash yarayne de iyana u baraynaynaayo waxay naga go-an oo in dhaqaale la yareeyaa loo baahanya oo qofka ka shaqaynaya doorashada uu ogaado inay tahay hawl qarane aanu macaash ka dayn marka waxaasoo lacag baxayaana qaranku bay ka go-aysaa in kaambeenadan hoos loo dhigaa wanaagsan doorashada markaasi nagu joogtaa waa wadaynaa waa guul Soomaaliland joogtay inay iyadu maamulatay diiwaangelinteedii nabad ku dhamaysatay insha Allah doorashadana sidaa ay noogu dhamaan doonto dhaqaale aynu ku maamulo doorashooyinkeena iyo dalkeena waanu haysanaa ka dadka iyo ka dawladdu waa isku mid waa hawl qaran marka leeyahay waa lacagta aad jeeb ku leedahay oo dawladdu hayso waa adduun qaran dhammaantood lacagtaas waxay u adeegaysaa in dadweynuhu iyo dalka hor loogu mariyo